حسن دورتا دالك هكتورينينا درب درنا حسن دورتا المرية أنا شيخ علات كحمني سنة حفيز كنا كسر عليه وحن ربا وركي إنا كسر دويو meeshaan waxa maanta fadhiya ummadii Soomaaliyeed oo dhan waxaan ka hadlaynaa arab Soomaaliyeed iyo darajo Soomaaliyeed aan waxna ka dooninaa waxna ku doonin goboladu xooday sidaas darteed waxaan leenahay iyo sidii u xeeliyay Libaano maanta dalka iyo dadka oyliya waa ku celeen dalka maanta oyliya wararka dacaayadda iftiinimada kontana murashaxana ما يصدر مرشحين ما يريد أو فارع يريد أو لباحة ماشي وحاس إسكتافة قال كان ما أنت حسن شيخ هداد أديبتان وبدادية وانا بدادية إلهي إذن كيسنا ساسا ينكرمنا وعن ربائنا ماشي وما هذا اليوم والله مرة الله أبوان محمد سال يا أبوان سلات جني warku waxa la rabaa inuu sidaas u cadiyo xafladan dadka soo iibsanaya waxaan leeyahay dadka abwaanada hal karaameeyo hal taageero waa laga ducaysaa waana aduhu xarig jara lagu xasuustaa abwaankii ugu dambeeyay magaciisa ayuu xafnaha ka hamidii loogu gabayre waa saddex abwaan lana coltamin ragga meeshaan joogo gabdhaha meeshaan joogo kuwa caqli leedihiin dadkana waa is yaqaana maalinba meel aada dalkan shalay isagoo god galay ayaa ilaahay samada wuxuu ka keenay dacwadii la yiraahdo Maxamed Xuseen Rooble ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda samada ilaahay ka keenay burburkii leeyay ma aanan ogeyn ninka koobaad oo taageeray waa Xasan Sheekh Maxamuud hooyada dalkan godka laga bixiyay godkii waa laga soo bixiyay abwaanadu maanta waxay ku duceeyeen waxay dalbeen درجة حسن شيخ محمود اللجوس إله بقى حرمي بنت ولا عرب كورة وحباس وعرب هالكلمة أنا عندي شو وهذا هو أنا وقعك عيا شو دوات غيرنا حلبان الذي هو ولا حاجة مركان أبوان ثلاث جنيه أنا همان السرعي حسن اليابان إلهي إنه كردقيه أبوان هذا أنا عرب كورة ولا ساري هاي مسجد كحاول تقش إلهي صبر يعني مسجد كوغلي قبل يصاد دوبي اكتدوا ميل والبابا نكي دورشو قلي بنانك إلهي كار حفظني من لهين تلدي بنانك إلهي كار حد يروح عن حفلتان ليا إنه يهيدا مقادا دوقي هرو دوبك بنادر فضية أنه وإسقرانينا أبوانا مسجد انت لغو حريون لقيو خطبات حنبارسان وكتابك القرآن قال الله سوعد بيقو أبوانا إلهي حرب كله ولا جري هلا يراد الدعية هلا يراد الدعية أبوانا وأبتي رجي هذا كمان دمائي كريم حاضر سلي أبوان محمد سال كده حلو وإسوكتين هذا كمان دمائي كريم حاضر سلي يقول أبوانا حلقة ورقبة حلقة كرامي فعوركي يقصوا خلاصين يا ربي حقا في ديك السنة صلكة وحينا نوصل مرتب محمدين حسن أفرح حال مريض روب العرب كعملي سنة حفيز كنا كسر عليه وحر إلالي محمدين حسن أفرح يركل طولك عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أقول محمدين يطولكم ماشينا لكذا البواء إيماننا هدي الله يرادو ما أنتنا حفلتنا يا إماشها محمدين يرجل السعودية يهوشي لصومري يا معلمي محمد حسين روب للوجود الجنا رجل نجرب استعجنا وانا قانا ما أنتنا واهيلنا برينا واهيلنا نما وحير حلبانا أضياش الله اللين أنا وحن نوتو حلبانا إلى الله هذا الله ما حد أنا بانينا مرة عن ولا هذا الله dadkuna waa is yaqaana waa hiilinayna insha Allah si dabaan oo hiilinayna hadii la yiraahdo ma gambanayna dalabkeena iyo doorashadeena ilaahay idankii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waay ilaahay idankii saasay noqonayaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bishaaro macaamiil ma doonaysaa inaad hesho dhammaan adeegyada shirkadda isgaarsiinta Somtel adigoo isticmaalaya mobilkaaga simikaar la'aan habraaca isdiiwaangelinta fudud ee adeegga eSIM si aad u furato adeegga eSIM haddii aad isticmaalayso Samsung ugu horeyntii gal settingka mobilkaaga kadibna dooro simikaar manager sidoo kale dooro add mobile plan ku iskaan garee QR code-ka ku gaarka
gaarka ah ee kuu soo dirtay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Ugu dambeyntii confirm garee hambalyo waad ku guuleysatay isdiiwaangelinta adeegga eSIM ee shirkadda isgaarsiinta Somtel. Si aad u furato adeegga eSIM haddii aad isticmaalayso iPhone, ugu horeyntii gal settingka mobilkaaga, kadibna dooro Cellular, sidoo kale dooro Add Cellular Plan. Ku aadi QR code-ka kuu gaarka ah ee kuu soo dirtay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Ugu dambeyntii confirm garee hambalyo waad ku guuleysatay isdiiwaangelinta adeegga eSIM. Fiiro gaar ah, ugu horeyntii hubi inaad haysato internet ka hor inta aadan gudagelin habraaca isdiiwaangelinta fudud ee adeegga eSIM. Mahadsanid. September 10-keedii 2012 waxaa baarlamaanka Soomaaliya ii doorteen madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. waxaa la igu wareejiyay dal sabool ah, dowlad federaal ah oo aan banaadir dhaafsiisnayn, dowlad caasimadeeda in ka badan 60 isbaaro ay taalo, dal inta badan argagixisada ay haysato, dowlad aan miisaaniyad iyo bangi dhexe oo shaqeeya aan lahayn, dowlad aan xiriir diblomaasiyadeed la lahayn inta badan caalamka, dowlad aanay u dhisnayn hay-adihii dawliga ahaa, dowlad aan lahayn shaqaalo rayida oo diiwaan gashan, dowlad ay wax kasta oo dowladu u baahnayd ka maqan yihiin. caqabadihii hor yaallay way badnaayeen, waxaanse diiradda saaray inaan dowladnimada hoos ka soo dhisno, annagoo shaqada siday u kala muhiimsan tahay u kala hormarinaynay. waxaan ku dhaqaaqnay fulinta heshiiskii bulsho ee ahaa hirgelinta nidaamka federaalka ah. waxaan ku guulaysanay xoraynta gobollo badan oo argagixisadu ay haysatay. waxaan qaadnay isbaarooyinkii caasimadda dhex yiilay. waxaan diiwaan gelinay shaqaalihii rayidka ahaa. waxaan dib u howlgelinay hay-adihii maaliyadda sida bangiga dhexe. waxaan dejinnay miisaaniyaddii qaranka. waxaan dardar gelinay wadahadallada Somaliland oo aan u fududaynay adeegyadii uga xirnaa dowladda federaalka ah. waxaan soo celinay xiriiradii caalamiga ahaa. waxaan dejinnay siyaasad arrimo dibadeed oo ka madax bannaan colaysi, annagoo danta Soomaaliya ku raadinay iskaashi iyo diblomaasiyad. daadejintii awoodaha iyo maamulka federaalka ee aan ku baahinay waddanka ayaa suurtogeliyey 49 sano kadib in aanu Soomaaliya ka hirgelinno doorasho dadban oo ka dhacday meelo badan oo kala duwan. anigoo ka dhabaynay u saldhigidda siyaasadda xasiloon ayaan hirgeliyey doorasho hufan, daah furan, loo dhan yahay, loona siman yahay, oo la iiga guulaystay natiijadeediina aan aqbalay. shaqadii aanu ka qabannay qarandhiska iyo haykalka dawliga ah waxaa ku yimiday dib u dhac. dalkuna wuxuu maanta marayaa siyaasad ahaan, amni ahaan, dhaqaale ahaan iyo diblomaasiyad ahaanba meel ka liidata meeshii aan uga tegay. Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeedba waxaa iga haysa laxajeclo qoto dheer, anigoo intaan ka waaya aragnimo yar, ka khibrad yar, ayaan ka quusan waayay Soomaaliya. maanta oo aan ahay oday Soomaaliyeed oo xogogaal ah, sideen uga quusan karaa? si aan uga kabanno dib u dhaca, u soo celinno isku duubnida ummadda iyo xasiloonida dalka, waxaa loo baahan yahay siyaasad, dulqaad, dimuqraadiyad iyo damqasho leh oo horseeda dhammaystirka dhismaha qarannimadeenna. Soomaaliyey, waxaan ahay murashax u taagan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya 2020. sidaas darteed waxaan weydiisanayaa ummadda Soomaaliyeed
inay isiiyaan kalsoonidooda si aan u hogaamiyo dalka mar kale waa mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.